إنا لله وإنا إليه راجعون قيردو حقوياني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما dadka ka soo qayb galay xafladani waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan idinka raali gelinaynaa dibadhic yara ee inagu yimi waxaan filaynaynaa markaan inaanu bilaabano xafladiyadii maanta waa maalmo axada 13 Agoosto sanadkuna waa 2014 waxaan soo nimid inaanu ka wada qayb galno xaflad lagu xasuusanayo heliya Soomaaliyeed oo dhinaca sportiga ah isla markaana aan filayo inaa si weyn uga dhagi doontaan xafladda tani waxaynu ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka waxaana inoo akhrin doonaa Sheekh Axmed Caato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم منهم فاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيضا القرآن الكريم كإلهي نوع أنفعه أحمدنا يسوعنا أجري حسنات الله كسيو واتهاي حفلتني وحينو ugu ku xasuusanaynaa haliyay Soomaaliyeed oo dhinaca sportiga isla markaana ah kabtankii ugu horeeyay dhinaca kubadda cagta ee Soomaaliyeed waa Maxamed Qalaf Aadan Shangole oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Ilaahay ha u naxariisto. runtii waxaan filayaa in taariikhdiisa aan la soo koobi karin oo uu ahaa haliyay si fiican ugu dhex muuqday dhinaca sportiga tan iyo intii uu ka geeriyoonay. waxaan u yeerayaa Yusuf Daawud oo isagu inoo sharaxaya qaabku ahaa Maxamed Qalaf Aadan Shangole. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan u joognaa xaflad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo aan ku xusayno geeridii naxdinta lahayd ee ku timid awowgeen ma dhihi karo adeerkeen laakiin waxaan leeyahay awowgeen Maxamed Khalaf Shongale. Maxamed Khalaf Shongale waxaan u malaynayaa taariikhdiisa in Soomaalida inta badan ay ka dheragsan tahay. wuxuu ahaa kabtankii ugu horeeyay ee kubadda cagta national teamkii qaranka ee Soomaaliya. wuxuu ahaa nin runtii aad iyo aad ugu firfircoon isu keenidda bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca sportiska. wuxuu ahaa haliyay Maxamed Qalaf Shongale kaliya ma ahayn haliyay dhinaca sportiska ha yeeshee wuxuu ahaa haliyay si aad ah loogu xasuusto yacni xornimadoonkii Soomaaliya. waxaan ula jeedaa halgankii xornimadoonka Soomaaliya ee 1940 soo bilowday ilaa Soomaaliya xornimadeedii ay ka heshay 1960. inkastoo dhinaca sportiska uu aad iyo aad ugu firfircoonaa haddana dhinaca gumaysi la dirirka iyo isticmaal la dirirka Maxamed Qalaf Shongale wuxuu kaga jiray safka hore. aad iyo aad ayaana loogu xusuusan doonaa. xafladatan aan maanta halkan u fadhino waxay tahay runtii xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo runtii mudnayd in
intan in ka badan Soomaaliya inay ka soo qayb gasho laakiin waxaan isleeyahay dad fara badan oo halkan lagu casuumay maanta duruufo jira awgood oo dhinaca faamiliga in ay ku soo xaadiri waayeen ay kaga baaqsadeen xafladda geerida naxdinta ay ku timid awowgeen aabihii sportiska Soomaaliya Maxamed Khalaf Shongale runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan oo aad iyo aad noo taabatay gaar ahaan dadka reer Jowhar oo ah dadka runtii lahaa abaabulka xafladan weyn ee maanta halkan aan u fadhino kaliya reer Jowhar kama dhimanin maxaa yeelay ninkani wuxuu ahaa national figure shakhsi qarameed shakhsi magaalo kaliya ma ahayn inkastoo cimrigiisa intiisii badnayd uu ku dhamaystay magaalada Jowhar gaar ahaan sanadihii u dambeeyay haddana wuxuu ka dhintay Soomaaliya oo dhan wuxuu ahaa national figure in heer qaran ah Maxamed Khalaf Shongale inkastoo aanan weli ka maqlin tacsiyo ka timid madaxdii qaranka Soomaaliya haddana waxaa hubaala sidana soo gaartay in madaxii ugu sareeyay International Football Federation Sepp Blatter inuu tacsi u soo diray qoyskiisa marka waxay la tahay in ay tahay arrin si gaar ah mudnaanteeda u leh haddaan ay Soomaali inaan ninkaasi xusuusano xusuus kaliya markaan leenahay kama hadlayno in magaciisa kaliya la xusuusto laakiin waxaanu la jeedaa inaan u duceyno inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoonkaas soo halgamay inuu Ilaahay dambigiisa dhaafo inuu Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo taasaan soo jeedinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay halkan iyo inta ka maqli doonta ama ka dhageysan doonta saxaafadda Soomaalida halkan fadhisa oo ay ugu horeeyaan telefishinada qaranka ee kala gedisan ee Soomaalida halkan fadhiya magaca dalada ay ku midaysan yihiin daliyada horan ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan IFSAN waxaan marka hore jecelahay inaan halkan tacsi uga diro qoyskii uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Khalaf Aadan Shongale qoyskiisii eheladii asxaabtii bahda isboortiga dadka reer Jowhar ama magaalada Jowhar dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee xiiseysay isboortiga waxaan u dirayaa tacsi anigoo dhahaya ninka odayga geeriyooday samir iyo iimaan Allah naga siiyo dhamaanteed qofka hadduu dhintana waxa munaasib ah ama uu mudan yahay in loo duceeyo marka waan u duceynaynaa waxaan leenahay naxariistii janno Ilaahay ha ka waraabiyo qabrigiisana waasac Ilaahay ha uga dhigo kitaabkiisana midigta Ilaahay ha ka siiyo intaa kadib marxuum Maxamed Khalaf Aadan Shongale taariikhdiisa waa laga sheekeeyay ninkii odaga ahaa oo ahaa gudoomiyaha jaariyadda reer Jowhar ayaa halkan si aad uga sheekeeyay runtii waxyaabaha lagu xusiisan karana wuxuu ka taabtay laba arrimood oo muhiim ah oo mudan in la xuso ah inuu ahay kabtankii ugu horeeyay ee kooxdii qaranka Soomaaliyeed iyo inuu ka qayb qaatay runtii halgankii gumaysla dirirka runtii waa laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah mudanna in lagu xusiisto waxaa kaloo jeclaan lahaa inaan halkan uga mahadceliyo dadkii runtii fikiray gartay oo hawshan maanta aan isugu nimid soo abaabulay iyagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelin lahaa hadday noqon lahaayeen dadka reer Jowhar iyo hadday noqon lahaayeen dadka kale ee ka soo qayb galay lagu casuumay hadday noqon lahaayeen dadka kale ee isboortiga xiiseeya wariyaasha dadka ka socda telefishinada odayaasha indhaargaradka dadkaasoo dhanna waxaan jecel lahay anigoo ku hadlaya magaca IFSAN inaan mar kale idin mahadceliyo aad iyo aad ayaad u mahadsantiin runtii inkastoo aniga caliwaar ahaan shakhsiyan arrimaha isboortiga layga fiican yahay haddana waxaan si weyn u aaminsanahay isboortigu inuu yahay wax aad iyo aad muhiim u ah bulshada dhexdeeda
waayo isboortigu marka waxyaabo badan laga soo gudbo runtii waa caafimaad waana tii la yiri jir caafimaad qaba ayay ku jirtaa ku dara idinku sidaas ayay muhiim u tahay in laga maarmo isboortiga waxa kaloo muhiim ah isku xirka bulshada in dadku isku yimaadaan arrimahaasna runtii ay ka midaysan yihiin ay sameeyaan isboortigu waa wax lagu xusiisto aad iyo aad muhiim u ah waxa kaloo ugu dambeyntii jecelahay inaan u mahadceliyo gabar Soomaaliyeed Faadumo oo hadii jeer si gooni ah marka laga hadlayo arrimaha isboortiga Holland contribution uga geystana iyadana aad iyo aad aan ugu mahadcelin lahaa waa mahadsantiin alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh markana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha hay'adda Hirda Marwo Faadumo Farax oo runtii ah hay'ad hadii jeer sidoo cali inoo sheegay baa u taagan kor u qaadista isboortiga Soomaaliyeed iyadoo aad ku wada taqaanaan in wadankani Holland ay ku qabato koob kala duwan Marwo soo dhawo السلام عليكم رمانتي waxaan rajeynayaa horta inuu ima qalayo waxaan marka ugu horeysa horta u mahadcelinayaa dadkii isku xilqaan maanta inay soo abaabulaan isku imaatinkan lagu xasuusanayo maxamed khalaf Shangoole macnaha wax la garan waayay ma aysan ahayn baan u malaynayaa waxaan u malaynayaa in macnaha kusoo aaday waqti aad u xun oo Ramadaankii ahaa aan u malayn doonana in sidaas aan lagu ilmaami doonin oo uu noqon doono sidii halyeeyadii hore oo Soomaaliya ka tegay loo samayn doono koob lagu xasuusto sida koobka General Daawud ama koob kale insha Allah waxaan rajeynayaa inaysan noqonin wax ku ekaado Jawhar oo kaliya waayo Jawhar kaliya kama uusan tegin wuxuu ahaa qaran buu ahaa marka qaranka insha Allah waxaan rajeynayaa in loo samayn doono magac lagu xasuusto waxaan marka ugu horeysa rabaa inaan ana tacsiyo diro insha Allah aniga ku hadlayo magaca dhalinyarada isboortiga oo iyo dadka isboortiga jecel oo Holland degan dhammaan kuwa kale oo adduunka jooga oo fursad aan hilmaantay inay tacsiyo u diraan qoyskii iyo eheladiisa asxaabtii iyo dadkii Soomaaliyeed oo ka geeriyooday Shangoole waxaan leeyahay macnaha Ilaahay jannadiisa ha siiyo qof walba waxa sugaya macnaha geerida waana xaq waa wada tegaynaa laakiin waxaa la yiri waarimaysid warha ka haro asaga warka maanta ka haray waxa war oo macnaha qof ka soo xasuusto wanaag ku xasuusan doono insha Allah waxaan rajeynayaa Ilaahay ugu bareena inuu jannadii ka waraabiyo in Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo in Ilaahay kitaabkiisa gacanta ka siiyo Ilaahay wax walba oo wanaag uu sameeyay intuu jiray maanta uu helo ajarkiisa insha Allah taas uu baahan yahay inaa uu duceeyo waxaan rajeynayaa marka oo kale in macnaha uu soo noqon inuu dhintay oo magaciisa halkaas uu ku baaba'ay waxaan rajeynayaa inay soo baxaan dad isaga bedela oo asaga tusaale u noqdo oo sii wada halgankii uu sameeyay oo ah dhalinyarada ku gubaabiyo inay macnaha isboorti isku raacaan in macnaha Soomaalinimada la nooleeyo waxaan ognahay in isboortigu uu yahay waxa isku keenkeeni kara marka anaga isboortiga aan sameeyno waxa aragnaa in Soomaaliya oo dhan ay iskugu timaado iyadoo cid ka maqan aysan jirin kaliya xataa ma aha Soomaaliya shanta Soomaaliyeed ayaa wada joogta ciyaaraha marka waxay noqonaysaa wax isku keenkeeni kara isboortigu waa wax aan macnaha in marka loo ciyaarayo waa la is afahmayaa cidna uma baahna cid kale inay u turjunto waxa la isku fahmayaa ciyaarta la ciyaarayo marka waxaan rajeynayaa insha Allah inay noqon doonto in la sii wado halgankiisii oo uusan noqon wax meesha ku baaba'a oo meeshaas markuu dhinto la dhaho uu dhintay ninkaas nin saas uu ahaa maanta isku imaatinkeena iyo wax laga qoray inaysan ku ekaan laakiin insha Allah ay noqoto magaciisu inuu jiro oo uu noqdo macnaha nin lagu daydo oo dadka Soomaaliyeed ay ku daydaan macnaha tegitaankan dhimashadana waa Ilaahay waa mid xaq ah oo mar walba nagu dhacaysa laakiin si aan isku dayno inay noqoto fikirkiisa ahaa gobonimo doonka oo maanta laftarkeeda Soomaaliya ay u baahan tahay inaan gobonimo doonka la raadino taas laftarkeeda in la raadiyo iyadana iyo in dhalinyarada waxa uu sameeyay oo ahayd in Soomaalida dhalinyaradooda lagu baraarujiyo inay isboortiga iskugu imaadaan iyagoo la fiiraa inay yihiin dad Soomaaliyada ah isku meel ka wada yimid isku af ku hadlaaya isla markaana saaxiibo ah oo waxa xun laga dagaalamayo السلام عليكم سهرو إن شاء الله مرتو حرجينا إنه نقدر سيسو عضا أو معناها وشي سيسو عضا أنا إن شاء الله وحن قبل دونا عيارها أمستم فوتسل تورنمنت أو سنة كان 2014 قريب دونا ديسمبر إن شاء الله ميموريال مسمين دونا isaga iyo dadkii kale oo dhalinyarada dad badan oo Soomaaliyeed laba qof oo kale oo ayaga sportiga ku jira ayaa naga dhintay soo maray asagana uu dhintay Allah u naxariisto waxaan leenahay
ilaahay jannada ha ka waraabiyo iyo daahir gacmeey labadaasba way dhinteen ayagana way ka baxeen insha Allah ayagana waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo waxay sameynayaan dad waxay ahayn bulshada Soomaaliyeed u adeegaya iyagana in la helo ilaahay dad noo bedela oo hawshii dhinaceed ka sii wadaan rajeynaya marka waxaan leeyahay قول ونكسن وذي أسكت دينا هوش أس ونكسن ميدا كحسوسنا وأن كدينا وأن سي ودنا هوشي وذين إن شاء الله يا راس وصعدا إن شاء الله من أنا يحتوى حمص من دونا ميموريال سيدا يرضى وجوا بينا وتصنع وحي هاي ضدك الصومالي وها الجماعة يا راها أي سبورتي مرك إن شاء الله حتجينا إن المستقبل كان قبل دونا أنا جنا ميموريال كان ديسمبر كان صوص على تهديد هذا وما سنتين لبنتين عليكم ورحمة الله وبركاته بروديقان تعسيدة أنا وحاب حفلة ما أورن كرو ووالد كيبو هاي أورنتي مركا حفلة وحاوي ولي الصواني سكرة حواي إليك تهي تدكي السؤال بلي أنتي كسوقي بالشيء أنتي أضو إلهي أو نهاري صدايسا أنتي إنه كل جوا ما سنتين جسدنا إلهي خير كريم محمد خلف أنا واحد بشيء فاضل خلف سيقولوا محمد خلف أنا يربى أباي هو يدي الترسي كورياني وحنا نقول إلى دوارد كله أبي هو مركا إلهي هو نحرس يا شيخ أحمد قبل سنة إلهي هو واسعين يعني ما أنتوا وحبها هي بني آدم وحنا مركضك شنو أيوه وحبها هي دعو يصدقوا يعني أنت كلاسبي إلهي وأبري كلام وقف نور لكن مركا وصل وحباك اللي كلين أو يا يعني قف وحولا وصل غير أقبلين إلا عمل كيس ورما هيوان أنتوا قدوا كتشروا مركا إلهي بربرينا إلهي يقولنا حريصه قبل جيسنا هو واسعيه محمد خلف وهو قصة عام بحي واحد إلى هذا قبل ما الضوء مركا يقول رئيسي أنا يريد وهو قاطي أسوأ شيء بلاد يرتاح قاطي واجي أسوأ شيء صدق تمنكي شنو ديراتين محمد خلف كبعدنا وحنا نقضي سكرون ميل بيجريتيون ليس ميلي أيوت صير صدق نبى على مرة والقاطين إن هذا ونور يتوكل إلى هذا النواري تشسر صالح يجري سيداس أيوت تيمكي تيمكي قرك مركز الياني حكومة يودك تيمكي ويسدي أيوت كنون كبعدنا wuxuu noqday baa ninkii maaragtay ugu magac dheeraa oo markaa la yiraahdo Shangolet yani wuxuu kabtankii qof kasta dadkii hore oo kulli yaqaanay idinkuna waa aragtay Maxamed Khalaf kuma soo caan bixin kaliya Ganoli Maxamed Khalaf wuxuu ku soo caan baxay maanta halkaas isugu timaadeen waxa la yiraahdo qabiil nacayb waxa qurga dadka ku jira beerka ugu jira wuxuu ka doortay joog beeraha markaa la sameeyay wuxuu markii hore isku raran buu ku dhashay jawhar ku dhashay masaajid laba masaajid baa ku yaala jawhar masaajidka la yiraahdo masaajidka carabta maaka Soomaalida aabihiisa dhagax dhigaa la yiraahdo taariikh ahaan aniga sida ayay u tiri dhagaxa labada masaajid Abdul waa kamid ah dadka reer jawhar tus arabadiin soo noqon doona Abdul waa kamid ah reer jawhar baan ftayday macallin baan u ahaa dadkii waxaan ka shaqayn jiray jawhar aan waqti kala jecelkiisa ma sha Allah marka waxa weeye wuxuu ninkaasi ku caan baxay intaan isugu timi meel kasta ay kala yihiin Soomaali waxa weeye wadaninimo ciyaarihi kasoo ciyaarihi waxa ka qaarisan qabiil nacaybka qabiil waxa qurunka la yiraahdo dadka qalbiga way jira ninama uusan Maxamed Khalaf isagoo nin yar oo xoog leh ayaa nin wasiiro in adeerkiisa ayuu yiri ruqseen aan meelaha ka soo shaqaystay yani sheeko qabiil sidoo ku ahaa waa nin sheegaya ninkaas إن أدركيسا وسيرك واحد لقى لي جاهد كأوتوبار وكش غير هاي ومركي لقى لي يبويني الرخصة حكم باصوب حيدرون دو إلى ذا إذا مرة دو جراد 8 مرة دو جار إلى 7 إلى جار سياد محل سياد بركلية إلى ورقة دو جار وصار رخصة يبوي وبقى ورخصة كري وبقى رخصة يبوي وسكستو ده ما وشوحي وأنت لقى هذا إيه نكل ومت كلاه وسير لقى لي ninkii baa yaqaan oo shaqale qorasoo shaqaysuuye wuxuu ku duuqan inuu ugu dhigo soo cid u soo weydii yaani barfiiri marka ninkaas wax qabiilna wax ma tarin asna marhaadsan maalintii ummadusi ahaydo xumayno waa derejo oo meesha ugu jecel gurigu ku leeyahay
guriga uu ku leeyahay dadku waa la yaabeen waxay dhaheen majawar baa guri ka dhisaysaa isaguna ballan buu qaaday inuu ka dhiso 6 qol uu ku leeyahay waa runtii kol jawhar iyo wuxuu ku leeyahay masaajid yar marka maxamed khalaf ma ahan ilaahay ha u naxariistee ma ahan in maaragtay kulli aan kusoo koobi karo laakiin waxaa idiin sheegayaa dhalinyaro iyo kulligeenba waxaa idiin sheegayaa ninkaasi khayrkaas wuxuu ku helay waxa la yidhahaa qabiil caybka hadduu janjeersan lahaa oo dhinac ahaan lahaa wallaahi qofna isugu imaadeen maantana si gaara waxaan jesadina khayr allaha ka dhigay u leeyahay jawhar meelaan kulligeen isaguna waa jeclaa anna waa jeclahay waa aada iyo aad waxa weeye waa meelaan qabiil ahayn waa meel ummadda dhalinyarada iyo dadka halkaa ku koray aysan ku weydiinayn wallaahi anigu waa ka guursaday markaan ka guursaday waxaa la yidhi Soomaaliyeed baa guursaday gabadhii Abuukar Cabdulqaadir Abuukar Cabdulqaadir waxaan marayaa waa taqaanay dadkii dhaxawaa waaweyn gabadhiisaa guursaday markaasaa lama garanayn yani qabiilba lama raadin jirin waxa uu yahay ma jirin waa mahadsantihiin sidaas samayseen anaguna ma iloobi doono idinkuna waxaan leeyahay sidiinaas ka sii wada وشكرا لله من لا يشكر الناس بالله لا يشكر الله قفك ضدك مهد علي إلهي مهد علي مرحبا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يا دماء سلامتهم أنا مقعي وزهر السياد نالاي waxaan ka mid ahay ururada Soomaaliyeed afsan iyo ururada kale oo hoosi maada waxa soo wacay dhalinyarada Soomaaliyeed markii ninkan walaalka ee Soomaalida oo dhintay aniga telefishinka kala socday iyo website-yada Allah u naxariisto waxaan marka hore aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay dadka degan Holland inaan anaga u sameeyno dadka taariikhda oo dhintay inaan broodyo u sameeyno kii ugu dambeeyay wuxuu ahaay Saada Cali waxaa ku horeeyay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo inta dhiman oo kale hadii la dhintana in kulleeyba qofkii bulshada wax u qabatay in macnaa la xusi doono aniga laakiin mid ayaan idin xasuusinaya cayaaraha by nature waa jeclahay waan fiirsadaa football ha ahaado basketball ha ahaado dadka ka helanahay marka waxaa idinka generation to generation aan yiri aniga generationka kacaan kusoo barbaaraan ahay sida dadka ah shire waa ka walaalahay u yaqaana anagu harbay dhaba heer jawhar heer Kismaayo waagi hore saas ah marka waagi hore intii maarta dagaalada dhaceen waxaa la tartansiin jiray gobolada wadanka in macnaa banooni football oo aad u qiimo leh anu baydhabo baan ku dhashay baydhabo baan ku koray waxaan difoos u ahay baydhabo laakiin waxa waalidkay waxa laga yaabaa inay gobol kale ka yimaadeen laakiin waxa waalid ka qiimo badnaay magaalada aad ku dhalatay in macnaa maxaa iyo gobolka aad ku dhalatay ولا أنا مالك أنا أوسع بيننا لكن بيد الهرجو هركسماي والأوجا مركا واحد مودا وايد عن ضب معرك أما هي هيران وما تساس أي حد واحد مودا وقت إنه إسبدله لكن واحد رجينا يتنا كلمات عن سكوب إيمان أنت صار من يرى إنه بالله وته هرجو هركي أي صار نقدان هركسماي أي صار نقدان هرحمروين أي صار نقدان أنا بعد ما كل شيء معها إن قرعة تقليدها ما أنا وحواي بعدما أقانا بورها كمان أقانا ميراس أقانا فقف السبب ماشي ويماذا معنا محا هاي إنه تبى ماشي دون تركض دون تر وأرتن أطارياشي أتريشياش وقفانا ماشي لو قلنا الشيء ما ماشي لو قلنا الشيء أنا إسبتال حتى أمريكا حتى لحق ما انتهي الهاي إلو لو تريك نقول سلا إسبتال في بعدما 1935 بس إستراحة معنا وحواي وإنه وقف السبب marka hadaan soo noqdo walaalkay sida oo taariikhda oo sheegay heer jawhar waa ku farxaan heer jawhar ayaa macna arrintan qaban qaabinaya tan kale heer xamar anoo noqotay iyo marka waxaan aan intaas aad iyo aad ayaa dareenkayga macnaha runtii u sarreeya marka anagoo kala duwan oo waxyaalo saan aan isu qaban qaabino waayo qabyaaladu anagu runtii man isku faaninayo dadka jecelnihi sida maxamed qaraf Allah u naxariistay aniga aan ka taaganahay بايك وكوي بايك نقدر نتمنى لك الدون waxaan maleynaa hadal waa dhan yahay wixii la oran lahaa waa la yiri aan u duceyno maxamed khalaf aadi shanqol ilaa inuu jannada ka waraabiyo inuu asxaabtii rasuulka raaciyo geerida xaq waayo qofka waa dhimanaya
لكن يقول بوحبه كتلا محمد آدم محمد خلف تاريخ ونكسب وكتجي صومالي وكتجي من قبيل جديدة أسوه انتي من هالجماعة يكتجي شمعة أيوه نو داري شمعة تهنا غيرنا قابنو ليش وكتجي أنه كسي ونو أي واجب نوا سيلا ذو أنا وأنا مسنة من كدو مر سبورت جاو وحنا قضانين صومالي هذا في ستان بقول كي سجاشن يسجل دتك سبورت كوهولن ودت صومالي نوا بين سويني دتك النوعة وأنت يسوي مالان أور نقطة اسكو هدفها استجعلها وذا جيرة أي نقطة قبيل كفو سيدا بالنا بقرب كله وحن قبيل خلينا كفو أنا بقرب سيدا الشيء سهرة الشيطان يقول له كل شيء إذا ما أنا كجعل هاي ما أنت مش والله بالله ما أنا كجعل هاي ما أنت الصومالي متع ونكون مطهر وضعي قاعد وحياله إسكنجيرة لكن دتك ما لها قاركود دقن وحنا هاي دتك صوبر باري قبيلة نقول صومالي كانوا كذي ولا ما نهرب أنا آخرنا وحكي آخرنا معلم بأرددي سويدي وحير وحنا ويدين يا مرك هبين كنا معهم واجنا الصوغر وساكو قرطة وحير مرك هبين كنا معهم واجنا الصوغر سيدكو قرطة متى جوا وحير مركان في ريميرفو أو أركو نف جوجو أنك لقرتو إنه أيه إنه سريه معلك وحير مايك مثل كلا فرت التاني وحير أنا وحيلتها مركان ميرفو فيديو جيت كيالو إن أنكرتو إنه جيت كجيت تمري هاي وسنهين جيت قنبة معلك يا دلوقتي دي دور جير الأرضي سوء ليس معلك مرة وحير هذا مايك مركي دلوقتي هذا معنا نوع شيء مركان هو جروي وحير وحو مجدي كاتية فتين كذا marka qof kasta wajigiisa aad fiiriso aad u aragto inuu walaalka yahay moorasha yahay Soomaaliya isu arka dad walaala isjeclaa wadankeena aad buu u yahay meel xun buu maraya badeennii baa lagu gurgurtamaya badii baa isku haystaa lacagkeena ilmaheena dhaafkooda waxaa la leeyahay Soomaaliya dacwoonayso waxay u dacwoonaysaa badoodii bay u dacwoonaysaa أنا بدينا برلمان كهذا هذا كورب ومصطماس اللي بيروح كوسمية ولا جديد البرلمان كهذا وحال يكون يسجل بقول تضباط إلى بدي شرعي نويا لو دولدي الله ونحرس هذا سكتة لسه مية يا نوع شرع والو أمس هذا الدبلوسوكي عرّة حبدنا الغربة واشجله شروع لي أدوك النور اللي نبى نقولنا بحال الغربة وحكدر وحنا ليه صوماليا دعونا شو كي يدعوي ليس كي أنا وحنا ليس مايا كي أنا وحنا قربت كي أنا هذين دعوة قبتي لين الدعوي شو ما هنا أنا دعوي لك هي محاول دعوي لي أنا شرعي اللي وحني وينو يلا تمر لفبا كوجت وحال إن محكمة تنادقيو اللي يدخلنا الحكومة ولا يدخلوا كي يدك قدرنا ما نقدر دعوة فسوى قدرنا أنا أرنتها الله قفيسو حاجة بدأ ذاكيسا لحالك عروتينو نولك الصومالي تاروا إلى ديلا اللهم نعرسنا محمد آدم خلف محمد خلف آدم اللهم نعرسنا جنة الله كورا لأن يريد العروسات سبورتيكا وعادك عصينا لنا سي ودان ودان يريد سبورتيكا سي برتان والضحالو قلبتان محايا سبورتيكا وداوذة كليا أنه ما أنتو يسانو وعودك قبيلك اللي قداوي كرم وحكا اللي قداوي كرم دقانا الوضع تولوين بان اسكو هستا تولوين كان اسكو هستا أنا حكوماي بريد دادك أن حولنا قتلها ومروا بنعفو في جيب سيئلي أنا غير بيدا وحدانا وحاني لنا سهرنا على إلى تغاني دورنا ورهبا دوب بلاو شهو
معناها وحوي والدورة اللي قاعد ودندنس بلاويس والدورة اللي عليك مركز لما تقول على كان ومن الحوالين تكنقضي من أنت من الحوالين كنقضي ساحة لي لو راجي دونا سو الدورة اللي قاعد شبكة عشان ما نعرف هل يجيب الصومالي وحول أحسن قابل كان في عم في عين عندنا كان حنا وحنتها عندنا ولكن حتى عنه والسلام عليكم سنتين هولن هذا لبعض يمكن نقدر نتوه عنوها من وين وعليها وعننا عبان ما كوين وكلوها ريزن كعون اللي ماشي عن وحيد أركاس وعن أحمد كرشقيني من مدرب إنه ما عرفت السمايو مع تلونا قبله على قبله يسوي عشان هاي يقبلنا كلام وحيد عن دوك عنه عارنا نادي عاونه واسميسين ذاتك بنتي وحكستوا واسميسين لكن عندنا مركان رجول أنه أفترق علينا وصلنا إنه مارتي عبين مكوين بداية أكتسيبيو وحقا بكر تبرت إنه حيل أكتر أنتين جالسين أنت جالسين عندما بعد الرجول وحاول من غضيار لكن المين نوكس دبنا البلس كواس خاضر نلا المان ما نشان يقولين دبنا حتى نويجو عشان أبغى في السنة فأنا هذا كفتم وايا بنوني وقت جفتا المين يقولي وصل ليل كذا بس كم جديد من الله وأنا ما سنتين سيدا نوصل ويسين وأنا يشتغل إن شاء الله ما نفيلين إن كانوا كلامتو معرفتيو أنا كيني لو جون جرين سفر كيني مرتقات كيني يو سيدا أنا قلت قاتين أو ذا عبين أو دنتي أسكنا ودعينه دعاء ويسقولنا هاي قفل بل ويسوي سامش سوي آلي سا دبعت الصومالي يكون جرتنا الله كبحيو كل جن مركزتو جورنا ودعينه إن شاء الله أنا نحاولنا أسكنا الله ونحرسته وأنا ما سنتين سلام عليكم يقولي بس إذا عاد إنهم هاد على سيدنا كنا وكما ستين قاب كان لغة مالين يقولي بعيارتي غرفة بدنيات شلي إن لا عيارتين وهاجاك ولي فريق مقدم برنامج كيني waxaan filayaa in xogaa waqtigu sii socdo qodbooyin aan sidaas u badnayn way noo hareen oo martida xafladda nagala soo qayb gashay iyo waliba jaalidihii kala duwanaa ay isugu jiraan sidoo kale waxaa jiri doontaa marti iyaguna qadka taleefanka ugu qayb qaadan doona oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin dowladda ka tirsan waa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan iminka qadka si toos ah ugu jira waa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowladda Soomaaliya waa Cali Goodlabe Xuseen mudane way ku maqlayaan shacabka ka soo qayb galay xafladda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعوة السلام يا يعني يدخل كشوف الله دحى ودعوة السلام يا وحنا إذا كيوم هذا علينا يا سيد هذا السوء أبو بشير هذا حفر الدين أبو بكر في فتان تفتكروا الرئيس الصومالية محمد آدم حرب شنقري هذا يعني كيوم هذا علينا يا سيد هذا السوء أبو بشير يا سيد أبو بكر في فتان مثل ما شعب الضبط كشبه لنا تحولها وإن كان وحيدين ما علينا يا عليه وقالنا يا شعب الضبط كشبه لنا تحول وعلى الله ما ذي كجار سألبك الإسلام مشين وعلى إن كان ضلقي لك وجسوا يا وتوسوا يا وانتينا وتوسوا يا أدلجينا وتوسوا يا كسبية تجعل ذلهم إذا ما ركت يا دارك وما يا ما ركت يا وما أبو ركتين dalkii idinka uu sugayaa dadkii idinka uu sugayaa anaguna haddii ilaahay raalli ka noqdo waa dadaalaynaa waxaan ku dadaalaynaa midnimo iyo sinaan iyo cadaaladaan ku dadaalaynaa sida horaba loo diri jiray dadka gobolka shabeellada dhexe xabsigoodu waxaan ahay shabeellaha dhexe ama waxaan ahay reer jowhar ayaa xabsigooda ahaa jiray haddii ilaahay raalli ka noqdana sidaasaan ku hogaamin doonaa xabsigoodana waxau naga doonaa waxaan ahay gobolka shabeellada dhexe idinkana haddii ilaahay raalli ka noqdo taladiina iyo tusaalihiina inaan qaadana diyaar ayaan u nahay wax walba ee salaad noo soo jeedisiinna waa qaadan doona haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad geesigaa shigeeriga ee kubadda cagta wax badan maaha
maaragtay usoo waqti badan geliyey aad soo xogtiisateen waxaan idinlaha ilaahay mahad badan ha idinka gaarsiiyo annagana gobolka inta ku noolo shacabka waa xusuuso doonaan waana xusuusanay annaguna sidaad idinku xusteen ayaanu xusi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo horena waa u xusnay abaabulkiinana waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin wixii talaha loo soo jeedisiina inaad aadana diyaar ayaanu nahay dalku wuxuu noqday federal sidaad la socodkiiba qof waliba gobolkii ay ku dhalatay ama gobolkii ay ku dhalmi jirtay iidaa laga rabaa inay dhisto hadda gaariyada gobolka shabeellada dhexe waxaan rajaynaynaa in ay gobolka wax badan horumarkiisa ka qayb qaadan doonaan annaguna waxaan ku hogaami doonaa ummadda gobolka ku nool cadaalad iyo sinaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waadna ku mahadsantihiin dadaalkiina iyo sidaad isugu duuban tihiin iyo jacaylka aad dalka la joogi jirteen inaad haddii aad wadamadii qurbaha aad tagteen aad sidaad isugu duuban tihiinna waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahayna idin jiseeyo wanaagga aad ka shaqeeyo weysiin waana rajaynaynaa hadda insha allah jaaniyada gobolka shabeellada dhexe waxaasay ka qabatay gobolka in la dhihi doono waa rajaynaynaa waxaa lagu ixtiraam soo jeedisiina waa qaadanaynaa aad ayaad u mahadsantihiin guud ahaan بدنا سلامتكم مرت الشرفة لا تكونوا وحبرنا يعني سلامنا ما أنت عندك وتعسيرنا الله ونحرسه من كرديد محمد قلف هذا شونغر ومد السلامك ومد الصومالي رنا وفوتي شونغر ساتكور كابتينو جور وحروح سوسا سبورتي وحكر وغيرها نيكو هو القبر شبلاده ليسن أم بطنت أم رافع سات تغنيكو جريها نيكو هو نيكو دعوينا نوها الله ونحرسه magaalooyinka wadamada islaamka dhan oo duceynayna waxaa kaloo hadda naga horreeya meesha khudbeynaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe gumaysiga ilaa hadda waa markii ugu horreysay cadaalad loo suubi oo nin magaalada johor ku dhashay loo dhiibo nin yaqaan hooyinkan ayaga abkoog abti adeer nin yaqaan oo ku dhashay waa johor sidaad ka warqabtiino cali guud xuseen sheekh aliraa midda kale waran walaashay soo dhamaystay saaranaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتم حاسبون نمت أنا بقى جاليد الجوار وحالكم كل سيني أدير كائنا محمد قلف هذا شغله وأدير كائنا ونوين قبل شباب ده أنجري كابتن جوار خارج الصومالية مرأة وحاسس يعني بدي مكود مناي inta uu dhiman ka hor waxaan joogay gobolka shabeellaha dhexe adeer shongol ku soo bartay cayaaro meeshaas ku socdaan isku soo baranay kadib hadda markay geeridiisa naxdinta leed ay ku timid ayaan waxaan isla hadalnay gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe injineer cabdisiino maraan telefoonku wadana waxaan ku dhahan gudoomiye anaga haddaan reer jaaliida joor ee qurbaa ku nool waxaan rabnaa in garoonkaas oo loogu magac daro adeer shongole in loogu magac daro injineer cabdi wuxuu dhahay markaad timaadad goobaan ku qabanaynaa garoonkana asaan macnaha magaciisa ku sheegaynaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحمد عبد البهجري waxaan halkan isugu nimid maanta xaflad oo barordiiq ahayd oo loogu barordiiqayay allah u naxariistay waxaan dhihi karnaa awowgeen maxamed qalaf shoongale aniga weliba waxyaabaha aniga aan ku xasuusto waxaa ka mid ahayd markaan aan sportiska soo galay oo aan maaragtay cayaari jiray footballka wuxuu ahaa aabii soo gacan qabtay iguna dhiirigeliyay inaan sportiska aan sii wado gaar ahaan footballka waxaan kaloo kusoo xasuustaa habeen anoo ka mid ahaa kooxaha ka tirsan Jowhar oo la yiraahdo Somali Arts kana mid ahaa ciyaartoyda Somali Arts yaa waxaa dhacday in koox kale uu asaga u ahaa guddiga kooxdaasi iga heleen ciyaarteyda ee rabeen inay ila soo wareegaan marka waxaan ku xasuustaa habeenkaasi wuxuu ka mid ahaa dadkii ila hadlayo dhahayay maaragtay noo soo wareeg annaga oo naga mid noqo si maaragtay dhiirigelina marka taariikhdiisa runtii waa aad u fogtahay waana sida la sheegay ee dadkii iga horreeyay sheegeen
wax badan lagu xasuusto marka waxaan jeclaan lahaa in aragtidii isaga uu maaragtay uu ku lahaa dadka in dhiirgelintii in halkii laga sii wado waxaan kusoo koobayaa maaragtay aadan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan anoo ka imid UK gaar ahaan London aadan uma hasantiin billahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kor qaad ma codkaadanayaa hoogaa mikrofon wada أنا حكيم عبد السهل وحنا كأوجة تعسينية الله حريست أديركي محمد آدم شغال قلف الله يرحمه وحقها عبيه أمد الصومالية عبيه وحقها سبورتي قبل كشبه الله بحس يابها أنك جبرني مرك إلهي وحق ويديننا إن إلهي عذاب قبرك كهايو أنت وكتجي أنت وكبحنا إلهي سمر إيمان صادق الله كسيو قبل كشبه الله بحق وكبحنا إلهي وحق ويديننا بدل غير قبل إن وكهله عدك كلا يقول في جو حوية بسم الله الرحمن الرحيم وعيوب اسماء على سو وحن هل كان وهم بلينا أنو مهد علينا يا إله وينا أنتي وحكلو مهد علينا يا جاليد دخولن كارهان هردن هاق وهل كان سودوي سودوينتي في عناد وينو سمين وهو مهد علينا وحكلون ربائنا هل كان وقت تعسيو محمد خلف آذن شونغولي أو كابتن كيغوري كوح الصومالية وعيارة ولبا waxaan ku xasuustaa wuxuu ii sheegay ciyaartii ugu horeysay oo aan la ciyaarnay oo koox oo Talyaani waxaan ku ciyaaro yiri kabal aan waxaan rabaa inaan halkan ugu hambaleeyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaaw Xuseen markan waxaan u gudageli doonaa dhinacii cashada iyadoo xafladiina halka aan ku soo gabagabeyn doono waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad inooga soo qayb gasheen xafladda tani abaalkiina waxa weeyaan waa mahadsantihiin